madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay danjirayaasha iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa la wadaagay sida ay uga go'an tahay dawladda qabsoomidda doorasho daahfuran iyada oo la raacayo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ay ansixiyeen xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka. madaxweynaha ayaa ka warbixiyay horumarada laga sameeyay hanaanka hirgelinta doorashada oo ay ugu horeyso heshiiskii siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada, ansixinta habraacyada iyo shuruucyada hagaya doorashada, diyaarinta gudiyada madaxa bannaan ee qabsoomidda doorashada iyo xaqiijinta miisaaniyadda doorashooyinka. tanaasul badan ayaan ka sameynay hanaanka hirgelinta doorashada, waana arrin mudan dhiirigelin iyo xoojin si looga miro dhaliyo hadafka guud ee qabsoomidda doorasho waafaqsan shuruucda dalka kana turjumaysa horusocodka dawladnimadeena. madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay dadaalada xukuumadda ee ku aadan xaqiijinta qabsoomidda doorashada, isagoona adkeeyay in la sii anba qaado qorshayaasha lagu hirgelinayo doorashada dalka. dhankooda wakiilada beesha caalamka ee madashan ka qayb galay ayaa bogaadiyay tallaabooyinka loo qaaday hirgelinta hanaanka doorashada, waxayna tilmaameen inay ku garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed dadaalada ay ku bixinayaan qabsoomidda doorasho loo dhan yahay. Shucayb Maxamed, warbaahinta qaranka, Villa Soomaaliya.